shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu magacaabay taliyaasha ciidamada qalabka sida golaha wasiirada oo ka jawaabaya soo jeedmada wasaaradaha difaaca amniga iyo cadaaladda ayaa cod aqlabiyad la ku ansixiyay magacaabista taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa loo magacaabay General Odawaay Yuusuf Raage iyadoo laga qaaday General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ahaa kusimaha taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa loo magacaabay Janaan Cabdi Xasan Maxamed iyadoo laga qaaday taliyihii hore ee ciidanka booliiska Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha ciidanka asluubta ayaa loo magacaabay Janaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyadoo laga qaaday Janaan Bashiir Maxamed Jaamac sida warbaahinta uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye maanta waxay isbedel ku sameeyeen taliyaasha ciidamada qalabka sida ugu horeyn golaha wasiiradu waxay amaaneen taliyaasha iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan hawlaha wanaagsan sugidda amniga iyo xoreynta goobaha argagixisadu ay ku dhibto dadka Soomaaliyeed hawlaha ay ciidamadu ka hayaan ayay si fiican u amaaneen waxayna wax ka bedel ku sameeyeen si hawlaha loo dardargeliyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ugu horeyn waxa xilkii uu hayay laga wareejiyay General Aadan Cilmi Indha Qarsho taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay Sareeyo Guuto Odawaay Yuusuf Raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxa xilkii uu hayay laga wareejiyay ama laga qaaday General Bashiir Cabdi Maxamed taliyaha booliska Soomaaliyeed waxaana xilka loo magacaabay General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaas lamida waxa xilkii uu hayay laga qaaday ama laga wareejiyay General Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda wixii ka dambeeyay noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sidaas lamida waxa taliyaha ciidanka Niisa ama ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed loo magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore u ahaa taliyaha ku-xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxa laga dhigay taliyaha ciidanka Niisa shirka golaha wasiirada maanta ayaa sidoo kale lagu meelmariyay hindis sharciyeedka marista wadooyinka oo ay soo diyaarisay wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada iyadoo sidoo kale lagu ansixiyay buuxinta kursi ka banaana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sida uu mar kale sheegayo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye golaha wasiiradu inta ka sokow waxay kale oo buuxiyeen xubin ka banaaneed guddiga doorashooyinka qaranka oo ay ku buuxiyeen Aadan Cabdinaasir Maxamed waxay kale oo ansixiyeen sharci ay hor keentay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka oo ah sharciga marista wadooyinka Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.